عقدة من لساني يفقه قولي. هذا أقوم هالسنتهاي ولكن عبد الرحمن سهل iyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa barnaamijkan oo qiimaha badan xaruntan macnaha lagu falanqeeyo siyaasadda iyo amniga iyo waxyaabo fara badan oo bulshada ay u baahan tahay. marka amni markii la leeyahay amniga hadda mowduucan wuxuu ku saabsan yahay amniga dalka iyo argagixisada. marka waa laba shay oo is saaran waaye argagixiso iyo ammaanka dalka. ammaanka marka xoogoo background ama khalfiye inaan ka sheegno wax yar oo fiican hordhac yar anagoo soo gaabinayo amniga dalka markii macnaheedu waxa loo jeedayaa aan u malaynayaa amniga qaranka. marka amniga qaranka national security ama amni qawmi. marka amniga oo wuxuu ku saabsan yahay amni markii la leeyahay amniga national security la leeyahay waa ummadda waxyaabaha ay leedahay. hadda baddan amniga ka mid tahay amniga qowmiga ka mid tahay ilaalinteeda muxuu ahaa xuduudaha waxyaabaha ummadda ay leedahay oo gudaha ku jiro oo muqaddaraadka ama ummadda waxyaabaha ilaahay uu siiyey oo qiyamka iyo value ay ka mid tahay diinta waxay ka mid tahay amniga qowmiga ka mid tahay caadada dhaqanka culture-ka kulli waxaasoo dhan amniga ka mid yihiin. maxaa yeelay waxyaabaha ummadda isku haya waay ujeedada amniga national security-na waxaa waaye in la isku hayo oo aysan dhicin dowladnimada inaysan burburin. maxaa yeelay markii nation leeyahay waa saddex shay waa shacab iyo dhul iyo xukuumadda waaye. marka macnaha haddii oo shacabka ay kala tagaan nation ma jiro. haddii oo ay kala go'aan oo dowlado yaryar ay noqdaanna dowladnimadii meesha ka baxaysaa. marka saddexdaas isku tagay ayaa la yiraahdaa saasay lagu tacriifiyaa. annaga marka amniga adduunyada amniga bini aadanka ama dowladaha ama ummad kasta oo jirta amniga u baahan tahay. xayawaanka u baahan, dadka u baahan, noolaha oo dhan u baahan, qof kasta amniga u baahan. argagixisada amni markii la leeyahay marka kelmadda amni macnaheedu waxaa waaye raaxo deganaansho waaye. waxaa laga yaabaa dad badan oo halkan fadhiya caawa inay weligood raaxo arkin maalintii oo dowladdii ay dhacday 1991kii dowladdii dhexe ay burburtay ilaa hadda amni darraa jirto. marka waxaa laga yaabaa dowladnimada lagu raaxaysto. dowladnimada waa lagu raaxaystaa laakiin ma arkin anaka dadka dalka Soomaaliya dowlad lagu raaxaysto weli lama arkin. marka raaxo la sheegayo waa raaxada waxaa laga yaabaa qofku inuu qaato hurdada markii la hurdaayo iyo markii cunto macaan la cuno iyo waxyaabahaas ma aha. waa xoogo waxaad moodaa falsafad ahaan inay tahay shay deeply oo aad macnaha macaani fara badan ay gadaal macnaha laga soo dheehanayo. argagixisada waxaa loola jeedaa taas waa ma u baahna in sharaxaad badan aan ka bixinno. maxay dhibaatadeedan u jeednaa waa xarakada shabaab iyo daacish. marka xarakaadka islaamiga oo aniga takhasuskayga oo marar badan aan ku takhasusay dad badan way jiraan oo diinta u adeego. diimahoo dhanna waa leeyihiin, kiristaanka leh, yuhuudda leh, muslimiinta leh, qolo kasta diinteeda waa ilaashataa, dadkana waa iskugu yeeraan. marka muslimiintana waajibay ku tahay inay diinta dadka ugu yeeraan sida saxda ah, sida toosan oo wanaagsan. laakiin inxiraafa ku dhacay, waxay ka leexdeen wadadii saxda ahayd, macnaha diintay reed marsan yihiin, waa ka leexdeen macnaha. marka waa hadda marka dilka iyo barakicinta arrimahaas oo argagixisada waxay sababeen waxyaabo fara badan in dadka ay dalka haajiraan, dhaqaale in hoos u dhaco, in oo ay faragelinta ay noqoto reason justification ama dhariica af carabiga lagu yiraahdo inay noqoto oo lagu soo gabado magaca argagixisa idin la difaacayna, idin la dilayna, waa idin la qabanayna, waa idin ka saarayna. waxa soo dhan waa been. kulli waxa waaye waa xalaqa oo silsilada wareegaya waaye oo isdhex gashan marka
ma rabna inaan ka sii sheekeeyo laakiin waxaan u fahansanahay barnaamijkan maadaama hadda aan la hadlayno mujtamaca oo bulshada aan la hadlayno amniga aan ka hadlayno ra'yi ahaan amniga marka laga hadlayo inaan amni darro abuurno ma aha ama anaga aan ka hadalno weak pointiga iyo qaladaadka jiro laana waxay sii abuuraysaa amni darro aragti waxaa jirta dhayso amni darro oo dadka ay dareemaan waxay kamid tahay amni darrada ay kamid tahay marka laakiin waxaan rabnaa inaan abuurno oo saaxiibaday iyo kulli ama dadka amniga ka hadla ru'ya mushtaraka ama aragti midaysan amniga national security inaan ka leenahay madaxweynaha baarlamaanka shacabka dhammaan macnaha aragti midaysan inay jirto taasaa muhiima in laga hadlo taasaa muhiima haddii aan u soo laabto muxuu ahaa aragtida ku saabsan su-aashii ahayd ma jiraan istaraatiijiye iyo qorsho dowladda ay ka leedahay arrimaha ammaanka waa jiraan dowladda way ka leedahay dowladda haykalkeedii idaarigaa dhisan sow ma aha baliiskii taliye baliis taliye military taliye nabad sugid maxkamad kulli waxaasoo dhan waxaa waaye waa nidaam iskaamilaya waaye oo ku shaqaynaya istaraatiijiyad iyo qorshe maxaa yeelay hadda halkan aan fadhino haddii oo aysan jirin qorsho oo ay kore uusan jirin annaga halkan hadda kuma caweyneyn kamana sheekayneyn marka laakiin waa jiraa laakiin mar kasta khaladaad way iska jiraan marka khaladaadkaas waxaa dhici karto fiicnaan lahayd inay yimaadaan fadhigan oo kale dadka iskale mas-uuliyaddaas ay ku dhacayso oo madaxda oo taliyaasha inay yimaadaan aad u fiicnaan lahayd si ayaga ay istaraatiijiyadooda u sharxaan laannaka istaraatiijiyada iyo qorshaha amniga ma ka sheekayn karna annaka maxaa yeelay waa arrin sir ah waaye ma naqaan annaga haddii xataa ay jirto laakiin annaka waxaan nala gudboon inaan sharaxno oo aan dadka hagno oo amniga inay tahay mas-uuliyad jamaaciya mas-uuliyad wadareed waaye waxaan kusoo gabagabaynayaa inahaasaan kusoo gabagabaynayaa insha allah